khasaaro dhimasho iyo dhaawac dad shacab ah oo ka dhashay qarax gaari oo maleeshiyada al-shabaab ku weerartay isgoyska X Control Afgooye ee duleedka Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay khasaaraha ka dhashay qarax saaka ee maleeshiyada al-shabaab ay ku laayeen dad shacab ah oo ku sugnaa X Control Afgooye ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo magacaabay guddi ka shaqeeya gurmadka dadka dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii argagixisada ee saaka ka dhacay X Control Afgooye akhbaaraadka wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn ku dhawaad 4 milyan qof oo Suuriyaan ah oo ku barakacay duqeymaha xagga cirka ah ee toddobaadyadii ugu dambeeyay ka dhacay gobolka Idlib ee dalkaasi khasaaro dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax gaari ay maleeshiyada al-shabaab ku weerareen isgoyska X Control ee duleedka magaalada Muqdisho wariyahayga Nuur Saciid Tahliil ayaa warkan faafahinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeeray isgoyska X Control Afgooye oo ah goobta subaxnimadii saakay ay argagixisada ku xasuuqeen dad shacab oo aan waxba galabsan oo u badnaa arday u socotay xarumaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha intii aan joogay goobta ay musiibada ka dhacday waxay indhahaygu qabanayeen gaadiid aad u tiro badan oo uu burburiyay qaraxa ay argagixisadu geysteen iyadoo gaadiidkaasi ay saarnaayeen dad u badan arday iyo kuwa noloshooda u halgamayay si ay u soo dhacsadaan nolol maalmeedkooda balse waxaa si arxandara u xasuuqay kuwa ka fog islaamnimada iyo alla ka cabsiga duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish ayaa warbaahinta u sheegay in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay aad u badan yihiin maadaama goobta uu qarax ka dhacay ay ahayd isgoos aad u mashquul badan sidoo kale waxa uu gudoomiyaha ku dardaarmay in loo midoobo ciribtirka argagixisada tira rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa sagaashameeyo sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ah waxay ahayn jaamacadda Banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa laayay dadkaas dhagari qabayaasha ku soo duulay dalkeena Soomaaliya ma aha markii ugu horeeyay oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen mar kasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan ka magan galnay shartooda bulshada Soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadawgooda iyo saaxiibkooda dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa booqday isbitaalka Madiina halkaasi oo la geeyay dhaawacyadii ugu badnaa ee ku soo waxyeeloobay qaraxii argagixisadu ku xasuuqeen dad shacab ah oo marayay isgoyska X Control Afgooye duqa magaalada Muqdisho ayaa booqday qaybta degdega ah ee dhaawacyada culus iyo sidoo kale qaybaha kale ee dhaawacyada lagu baxnaaninayay waxa uuna warbixino quseeya xaaladda caafimaad ee dhaawacyada ka dhageystay dhaqaatiirta iyo maamulka isbitaalka agaasimaha guud ee isbitaal Madiina mudane Maxamed Yuusuf ayaa kormeer kadib la hadlay warbaahinta dhaawacyada maanta la keenay qaar badan waxay u badnaayeen dhaawac fudud intii kale waan seexinay ilaa hadda waxaa noo jirto tiro 35 laakiin dhaawac guud ahaan waxay ahaayeen 52 intii kale waa baxeen marka dhaawacyadooda fudud loo dhayay waxaan rajaynaynaa dhaawaca hadda noo jiifo isbitaalka kartidiisa caafimaad waa ka adag yahay inuu daaweeyo
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa ballan qaaday in maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya ay dalka dibadiisa u qaadi doonaan dadka dhaawacyada culus qaba ee wadanka wax looga qaban waayo sida agaasimaha isbitaalka Madiina oo uu xaqiijiyay ilaa hadda ma soo gaarin isbitaalka Madiina bukaan isbitaalku uusan ku filnayn oo u baahan in dibadda loo qaado waxaan booqan doonaa isbitaalada kale haddii Rabbi idmo waxaan halka ka ballan qaadaynaa maamulka gobolka Banaadir iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya nagoo iskaashanayna inaan dhaawacyada dhaqaatiirtu ay ka dayriyaan inaanay halka waxba uga qaban karin inaan u qaadno yani meelo halkan ka takhasusaad ama ka qalab badan oo dalka dibadiisa ah waxaan rajaynaynaa iyagoo caafimaad qaba inay haddii aan qaadno dib inoogu soo noqdaan kuwa hadda bukaanka ah oo dhaqaatiirta ay ku filayeen waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa inuu si degdeg ah uu noogu caafiyo dadka Soomaaliyeed inay dhiig ku deeqaan bukaanka oo aan muwaadin Soomaaliyeed oo la badbaadi karo uusan dhiig la'aan ugu dhiman magaalada caasimadda gudaheeda marka waxaan halkaan aan ku adkaynayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay muujiyaan isku duubni iyo inay cadowgan qaab daran oo cadownimadiisu ay tahay inta noolba aan dilo inay isu kaashadaan oo meel magac leh ay uga soo haraan nuur saciid al-lasin TV magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka tacsiyadeeyay qarax saaka maleeshiyada al-shabaab ay ku laayeen dad shacab ah oo ku sugnaa isgoyska Ex Control Afgooye mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dalka ayaa ku baaqay in loo wada gurmado dadka dhaawacyada ah ee cisbitaalada yaala bismillahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun saaki subaxdii waxaa dhacay qarax meesha loo yaqaano Ex Control aada wadada aada Afgooye halkaas oo ka dhacay qarax aad iyo aad u weyn ayna ku laadeen dad fara badan oo isugu jira dad danyar oo u kala hayay nolol maalmeedkooda u kala hayay shaqadooda si ay u quudiyaan reerkooda iyo caruur u kala hay iskuuladooda oo da'yar iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqeynaya wadada u dhaxeeya Ex Control iyo Afgooye oo ka shaqeynaya wadada dhismaheeda waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhado ilaahay ha u naxariisto jannadiisa iyo naxariistiisa Allah siiyo qaraabadooda iyo ehelkooda iyo asxaabtoodana samir iyo iimaan Allah ka siiyo waqti ay ku soo beegantay waxay ahayd waqti lama filaan ah oo dadku ay u socdeen nolol maalmeedkooda ujeedka ka dambeeyana waxay ahayd inay ummadda Soomaaliyeed ay argagax galiyaan oo ay qalbi jabiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo dawladoodu marna lama qalbi jabin karo marna lagama hor istaagi karo horumarka dalkan iyo dibdhiskiis kooxdan argagixisada ah ee shabaab waa koox u shaqeysa argagixiso caalami ah oo loogu soo diray ummadda Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed inay xalaaleystaan dhiigooda ay xasuuqaan ummadda Soomaaliyeed ay burburiyaan wax dhismo ah shabaab wax ma dhisaan waxbay dumiyaan ma dhisaan iskuulo ma dhisaan goobo caafimaad ma quudiyaan shacab kama shaqeeyaan mustaqbalka carruurta Soomaaliyeed waxay ka shaqeeyaan oo loo soo contract gareeyay oo loo howlgeliyay inay ummadda Soomaaliyeed ka hor istaagaan horumarka inay laayaan shacabka Soomaaliyeed inay laayaan carruurta Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkan uu leeyahay waxaan ku adkeenayaa xukuumadda ama aan farayaa inay si degdeg ah u gurmadaan shacabka Soomaaliyeed oo halkaas ugu xasuuqay cisbitaalada yaala ay si degdeg u gaarsiiyaan wax alla wixii taageero ah ay la gaari karaan shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay inay iyaguna garab siiyaan dadkaas waalahooda cisbitaalada yaala wax alla wixii taakuleena ay la gaari karaan la gaaraan waxaan alla uga baryayaa intii halkaas ku dhimatay maanta inuu ilaahay jannadiisa iyo naxariistiisa siiyo eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodana
uu ka siiyey samri iyo iimaan. dhibkan maanta dhacay wuxuu noo yahay cashar joogto ah. dalku wuxuu ku jiraa dagaal, inaan u feejignaano argagixisada maalin walbaba waxa ay qorsheynayso inay tahay inay layso shacab Soomaaliyeed aysan u socon dadka u shaqeeya dowladda. waxaa loo baahan yahay inay arinta maanta dhacday oo argagixisada ah oo naxdinta leh inay namidayso oo aan hal meel uga soo wada jeesano la dagaalanka argagixisada iyo cidda la shaqeysata. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magacaabay guddi ka shaqeeya gurmashada dadka dhibaatada ay ka soo gaartay maanta qaraxii ka dhacay isgoyska Ex Control Afgoye ee duleedka magaalada Muqdisho. mudane xasan cali qeere ayaa xusay in xukuumaddiisu ay ka shaqeynayso sidii loola tacaali lahaa dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay ee isbitaalada yaala. bismillahir rahmaanir rahiim. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii ku naf waayay qaraxii ay geysteen argagixisada kana geysteen magaalada Muqdisho. waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inta dhimatay, inta dhaawacana ilaahay ha caafiyo sida ugu dhaqsaha badan. waxaan magacaabnay guddi heer qaran ah oo heer wasiir ah oo ay wasiirro iyo gudoomiyaha gobolka iyo dad kale ay qayb ka yihiin si loo dardargeliyo gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaas, loona gargaaro eheladii ay dadkaasi ka dhaawacmeen ama ay ka dhinteen. sidoo kale waxaan ka shaqeynaynaa in ciddii dalka gudihiisa lagu daaweyn karana lagu daaweeyo, ciddii aan lagu daaweyn karinna aan u raadino xal dibadda loogu qaado. shacabka Soomaaliyeed kuwa magaalada Muqdisho jooga iyo dalka dibaddiisa iyo meelaha kaleba waxaan leenahay waqtiyada ay dhibaatadu dhacaan waa muhiim in la isu soo gurmado. waa inayna shacabku isu gurmadaan. xarun gargaar degdeg ah ayaa looga shaqeyn doonaa si la isugu dubarido shaqada gargaarka ee socota. ugu dambeyntii dalkani waa dal dagaal ku jira. argagixisaduna waxa ay beegsataa kaliya waa shacabka Soomaaliyeed. waxaana rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego ummadda Soomaaliyeed niyadooda marna daciif mayso. inta laga soo afjari doono guushana ummadda Soomaaliyeed 100% ay ku dambeyn doonto. mar labaad waxaan tacsi u dirayaa dadkii laga geeriyooday, kuwa xanuunsanna oo ku dhaawacmana waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay si dhaqso leh u caafiyo. assalaamu calaykum waraxmatullahi. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa u tacsiideeyay qoysaskii iyo sidoo kale eheladii marka dadkooda ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii ay maleeshiyaadka al-shabaab saakay ka geysteen isgoyska Ex Control Afgoye ee duleedka magaalada Muqdisho. talagalkaygu wuxuu ahaa in sharcigii warfaafinta akhriskiisii labaad aan galno maanta. Axmed Bakar oo ahaa talagalkaygu wuxuu ahaa in sharcigii warfaafinta akhriskiisii labaad aan galno maanta. waxaan ka xunnahay in geeri xumi inagu dhacday oo dad tiradiisa la leeyahay aad bay u badan tahay ay qaraxiisaa ka dhacay inagaga dhintaan. sidaa la ajligeed aqalku wuxuu go'aansaday inay tahay maalin tacsi ah oo aan shir la qaban karin iyo shaqo, laakiin aan u tacsiyayno oo keliya dadkii Soomaaliyeed ee ku geeriyooday dhacdada naxariis darrada ah ee gardarrada ah. waxaan leenahay dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan samir iyo iimaan Ilaahay naga ka siiyo. intii ay wax ka baxeen
ee ehelka ahaydna sida oo kale waxaan leenahay samir iyo iimaan ilaahay intii dhimatayna naxariistii janno ha siiyo. golaha shacabka ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashada qaranka ka gadaal doodo ay muddo toddobaadyo ah ka yeelanayeen sharcigaasi. wariyahayaga Ibraahim Goodle ayaa faahfaahinaya warkan. ugu horeyn gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka furay waxa uu isagoo ku hadlaya magaca gudoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka oo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed uga tacasiidayay dadkii ku shahiiday qaraxii argagixisada saakay ay la beegsadeen shacab Soomaaliyeed oo marayay isgoyska Ex Control Afgooye oo ah meel aad u mashquul badan sidoo kale dadkii dhaawacay ay soo gaareen Rabbi uga rajiyay bogsiimo degdeg ah. أرضي ويكون العين وجماعة بنات التكسنا دكتور رئيس العيد الدولي والعيد أمانك يا ناصر من دوما أنت بنات الله وحنا وغيرنا بنات الدولي وكواربين أنت لرحمتنا بوسيمين التجامل وغيرنا. intaasi kadib xildhibaan Axmed Xaaji Maxamed Taaw oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka gaar ahaan guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa golaha u soo bandhigay akhrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka waxaana uu ka codsaday xildhibaanada inay meel mariyaan dhowr xeer oo ay ka mid yihiin xeerka habraaca xubnaha labada aqal ee ka imaanaya gobolada waqooyi iyo sidoo kale xeerka xaqiijinta qoondada haweenka. guddiga ku meel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka waxa uu xildhibaanada u soo jeedinayaa si loo hirgeliyo sharcigan doorashooyinka in golaha sharafta leh uu u soo dedejiyo sameynta labada xeer ee hoos ku xusan xeerka habraaca doorashooyinka xubnaha labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee gobolada waqooyi Somaliland. labo xeerka xaqiijinta qoondada haweenka baarlamaanka. ugu dambeyntii mudane gudoomiye guddigu wuxuu sidoo kale si xishmad iyo sharaf ay ku dheehan tahay uga codsanayaa xildhibaanada golaha shacabka inay ansaxiyaan hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka ee heer federaal maadaama xilligan dalka iyo dadkuba u baahan yihiin in laga soo saaro sharcigan hagaya doorashooyinka dalka Soomaaliya. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa u sheegay xildhibaanada inay hor yaalaan masiirka iyo rajada shacabka Soomaaliyeed sidaas daraadeedna looga baahan yahay in si Soomaalinimo ay ku jirto looga shaqeeyo shuruucda dalka muhiimka ah. intaasi kadib qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa aragtidooda ka dhiibtay sharciga doorashooyinka qaranka iyo qodobadii wax ka bedelka lagu sameeyay. marka sharci aan gelinayno archiveska haddaan ogolaanayno oo wax kale haddii se aan rabno sharci shaqaynaya xaaladda hadda jirta iyo sharciga kan isma waafaqsanaa. sharcigani waxa weeye discrimination waa lagu heshiin doonin waxaa la yidhi allahuma ballaqtu dagaalka ka bilowda iyo conflictku keenayo maanta kow ka ah sharcigan ha laga fiirsado yaa loo odaynin maanta xildhibaanada chance la siiyey inay fahmaan khasaaraha iyo faa'iidada labadan sharci ee la isgarab wado. xildhibaanada horta annaga nooma taalo dalkan inay ka dhacdo doorasho qof iyo coda iyo inaysan ka dhicin. annaga waxa noo yaalla waa sharci ina hor yaalla inaan ansixinno sharci batrool baan ansixinnay annagoo nooga in batrool meelu ku jiro marka yaanan ku qiyaasin wuxuu hadday joogaan wax mustaqbalka hadday hadda dhici waayaan mustaqbalka dhici doono waay. baarlamaankii sagaalaad intii ka joogta qofka waxa dooranaya 51 annagu haddaan nahay goboladaas waqooyi 51 waxaana dooranayay 3 aniga beeshayda 3 xildhibaan 51 baan soo doortay si gaar ah ahayn xildhibaanada kale 51 qofku soo doortay ayaa la nasiiyay waxaana ka shuureeyay baarlamaanka Soomaaliyeed waana la wada ogyahay. sharciga iyo iskuma xirna doorashada inay dhacayso inay dhacayso sharcigan waa inaanu muujinaa doorashada inay waqtigeedii ku dhacayso
doorasho saxaana dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo codna ay ka dhacdo wixii aan intaas ahayn waa hawl aan golahan maanta u oolin ama dooda sharcigan aanan u oolin waxaan leenahay doorasho xor iyo xalaalaha dhacayso gobolka banaadir aaway gobolka banaadir ma meelna higmaamaa miyuuna soomaaliya ka tirsaneen waxaa la yidhi xeeraa la dejinayaa waa soo dhowaynaynaa xeerarka la dejinaayo laakiin gobolka banaadir ilaa goormuu sugayaa in mar kasta laga tallaabsado gobolka banaadir malaayiin soomaaliyaha ku nool oo xaq u leh inay matalaad helaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cabdulla cawad ayaa xildhibaanada u faahfaahiyey qodobada ka hadlaya muddada xilhaynta baarlamaanka federaalk Soomaaliya. dastuurkii la daabacay 2002 haddaad fiiriso waxaa ku qoran sidii uu awal ahaa laakiinse qodobkani dastuurku ku jiraa waa dastuuri si aysan u dhicin firaaq ku yimaada jiritaanka hay-adaha dowladda sida ku cad qodobka 6aad faqradda 1 muddada xilhaynta baarlamaanka federaalku waa 4 sano waxayse xilhayntiisa rasmiga ahi ku eg tahay maalinta lagu dhawaaqo natiijada doorashada baarlamaanka xiga waa fahamteen soo maa dastuurkeennu wuxuu sheegayaa waxa weeye waktiga natiijada doorashada soo socota lagu dhawaaqo ayuu dhammaanayaa maandeedka baarlamaanka gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay in arrinta la xiriirta tirada kuraasta gobolada waqooyi iyo haweenka uu goluhu xeerar ka soo saari doono ugu dambeyn mudanayaasha golaha shacabka oo uu codeeyay hindis sharciyeedka doorashooyinka qaranka ayaa waxaa codka haa ku ogolaatay 171 xildhibaan 5 xildhibaan ayaa diiday halka 2 xildhibaan ay ka aamuseen sida uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka oo kulanka soo xiray waxaa ogol u codeeyay 171 waxaa diiday 5 cod waxaa ka aamusay 2 cod sidaa daraaddeed sharciga sidaas u ansaxaya Ibrahim Gudle Isxaaq raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta golaha shacabka Muqdisho gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan gobolada Waabari ayaa ka tacsiideeyay geeridii ku timid Allah u naxariistay gobolkii Axmedey Abubakar Mubarak Al-Camaari mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ayaa ummadda Soomaaliyeed gobolada Waabari iyo eheladii uu ka baxay gobolkii Axmedey Abubakar Al-Camaari uga tacsiideeyay Axmedey Abubakar oo ahaa fanaan weyn oo Soomaaliyeed oo isaguna maanta geeriyoodayna waxaan leeyahay eheladii Ilaahay samir yeeman ka siiyo Soomaaliyeedna Ilaahay samir ka siiyo gaar ahaan fanaaniinta Soomaaliyeedna Ilaahay samir ka siiyo isagana fardowsa Ilaahay ha ugu deeqo sidoo kalena agaasimaha maamulka iyo maaliyadda Maxamed Xasan Barrow gobolada Waabari iyo sidoo kale fanaaniin ayaa waxa ay ka tacsiideeyeen geerida Allah u naxariistay gobolkii caanka ahaa ee Axmedey Abubakar Mubarak Al-Camaari Axmedey Abubakar Al-Camaari oo ka tirsan gobolada qaranka Waabari oo fanaan weyn ahaa oo dalka Soomaaliya gudihiisa iyo dibadiisa shacabka Soomaaliyeed ay jeclaayeen oo heesa wadani ah oo badan dalka ka qabtay heesa nabi amaana ah adigu nin fanaan weyn oo caan ahaa waxaan ugu tacsiyeenayaa anoo ku hadlaya afka shaqaale weynaha golaha murtida iyo madadaalada uu maareeyuhu ugu horeeyo agaasimayaasha ku xigaan iyo shaqaalaha Waabariyoodil anoo afkooda ku hadlaya waxaan ugu tacsiyeenayaa reerkii uu ka dhintay eheladii qaraabadii caruurtiisii xaaskiisii Ilaahay ha u naxariistaan leeyahay anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca gobolada Waabari iyo magaca gobolada Soomaaliyeed oo dhanba fanaankii weynaa Ilaahay baa weyne ee qaaliga ahaa ee Axmedey Abubakar Al-Camaari ee laga yaqaanay dalka gudihiisa iyo dibadiisa kuna caan baxay riwaayadihii
qaaliga ahaa sida riwaayaddii shumey sida luul iyo leyla oo aan aniga asagu isla dhignay maxay ahayd riwaayado badan hadda heestii qaaliga ahayd oo dadku wada yaqaano oo magaciisaba sidii webigii qaadayow waa heestii qaahira lama tirin karo wuxuu fanaankaasu ahaa wuxuu ahaa nin qaaliya nin edab badan nin miskiina nin ilaahay yaqaana nin nebiyaa heese badanoo nebi ammaana sheegay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah ha u naxariisto axmedey abubakar alcamaari ilaahay kitaabkiisa midig ha ka siiyo annagana haddaan hoblada waa barinahay samir iyo imaan allah naga siiyo marka xiga caruurtiisii xaasaskiisii ehelkiisii hadday waalid yihiin iyo hadday walaal yihiinba samir iyo imaan allah ka siiyo ummadda soomaaliyeedna samir iyo imaan allah ka siiyo gaar ahaan fanaaniinta qaranka soomaaliyeed kala saari mayna fanaaniinta dalka oo dhan samir iyo imaan allah ka siiyo culimada Soomaaliyeed ayaa cadeysay falalka argagixiso ee maleeshiyada al-shabaab ay ku banaysanayso daadinta dhiigga walaalahooda waa dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ahi ay ka fog tahay diinta Islaamka. Sheekh Cali Maxamuud oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaana arintaasi ka hadlay. ruux kasta oo Soomaaliya how haddii aad maqasho ama aad fiirsato ama aad aragto ama lagu sheego dhacdadan iyo mid lamidaba inaad tiraaho inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allahumma ajurna fi musiibatina hadhihi wa aqibna minha uqba hasana wa akhlif lana khayran minha inna ila rabbina raghibun adna ajru kaasiha ilahi ajru ballan qaade ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun kuwaas du'a ilahi iyo dushooda ahaato saa u ducaysanaya kuwii laga ducaysanayna inkaar baa ku dhacday habaar baa ku dhacay lacnad baa ku dhacday ara ilaah baa ku dhacday war waxaan shabaabow haddaad islaamnimada aad sheeganaysaan aad ka dhabaynaysaan dhinacaan ka bedela ee dhinaca ummadda ay raacsan tahay oo diinta in lagu dhaqmaa in laysku xakumaa in lays nabadgeliyaa inaan laysboobin inaan ruux lacag laga baadin inaan ruux la dilin dhinacaas u roga ka noqda wadadan waa wada khaldan oo cariiri ah waan idin sheegaynaa hana nagu nicinine nagu mahadiya weliba nooga mahad celiya ayaanu idin leenahay ummadda Soomaalina waxaan leenahay sida aan u sheegnay annagoo u tacsiyeyna anigu waxaan ka socdaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaan ka socdaa cidna ka qarin maayo marka waa umuur ama shu'uun aan u xil saaranahay inaan u sheego sidii diinta islaamka ay qabto inaan ummadda u sheego shabaabna aan u sheego war shabaabow war arrinta ka noqda war ficilkan ha samaynina war waxaanu idin leenahay dalkiina iyo dadkiina haddaad baabi'isaan maxaad xageed ku noolaanaysaan ma baddaad gelaysaan mase hawadaad gelaysaan meel aad geli kartaan oo kale ma jirto cid idiin ogol intaasoo kale oo caraa oo aad ku degtaan oo ku noolaataanna ma jirto. wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa tababar ku saabsan fidinta caafimaadka magaalada Dhuusamareeb ku qabatay howlwadeenada MCAjada deegaanada galmudug. wariyahayaga Maxamed Cabdi Maxamed ayaa Dhuusamareeb ka soo diray. tababarkan oo muddo 2 toddobaad ah socon doona ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaana loo qabanayaa shaqaale ka tirsan wasaaradda caafimaadka Galmudug gaar ahaan haweenka ka howlgala xarumaha caafimaadka deegaanada dowladda goboleedka Galmudug kaas oo loogu magac daray marwo caafimaad sanadihii la soo dhaafana ka howlgalayay deegaanada Galmudug. haweenkan ayaana waxa ay ka kala yimaadeen degmooyinka dowladda goboleedka Galmudug iyadoona marka tababarku uu dhamaado dib ugu noqon doona deegaanadii ay ka yimaadeen si bulshada ay ugu adeegaan. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Galmudug Cabdiweli Maxamed Axmed ayaa waxa uu ka warbixiyay tababarkan iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay iyo inta uu socon doono. bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta halkaan isugu nimid tababar loo sameynayo
32 qof oo ka mid ah wasaaradda caafimaadka galmudug oo loo yaqaano marwe caafimaad tiimkaas oo ka shaqeeya villageska ama tuulooyinka ku yaala galmudug ee kala duwan si ay isugu xiraan bulshada iyo xarumaha caafimaadka si loo siyaadiyo isticmaalka adeega dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysanna loogu adeego ayagoo guryahooda jooga wixii ay u taag waayaan ay xawilaan xarumaha caafimaadka tiimkaasi waa tiim muhiim ah oo kamid ah qaybaha wasaaradda caafimaadka qaybaha ugu muhiimsan kamid ah wacyigelinta iyo adeega gaarsiinta bulshada iyo isku xirka xarumaha loogu talagalay waxa la yiraahdaa marwe caafimaad waa tiim xilli badan soo shaqeynaya sanado badan soo shaqeynaya ilaa 2014 ilaa hadda soo shaqeynayay welina diyaar ah inay u shaqeeyaan tababarkan waxa loogu talagalay in muxuu ahaayay dib loogu xusuusiyo casharadii hore loo soo siiyay oo xilli dheer ay soo qaateen haddana dib loogu xusuusiyo muddo 2 usbuuc ay halkan joogi doonaan haddii la yiraahdo oo ay training xoog leh ku qaadan doonaan kadibna waxay ay muxuu ahaayay ku laaban doonaan bulshadii ay dib ugu adeegi doonaan haddii la yiraahdo waxa naga caawinaya dadkan in dib loo howlgeliyo World Bankiga ama bankiga adduunka ayaa naga caawin doona haddii la yiraahdo in loo helo khidmo yar oo ay bishii heli doonaan haddii la yiraahdo sanadka cusub laga bilaabo iyo toolskii iyo wixii ay ku shaqeyn lahaayeen iyo reportingkooda iyo waxaas oo dhan waxa loo wareegi doona haddii la naga caawin doona bankiga adduunka oo mar dhow ku soo biiray sektorka caafimaadka oo in badan waayahan laga wada shaqeynayay haddii la yiraahdo marka tiimkaasi bulshada wax badan ayay ka bedeli doonaan haddii aan leed wacyigooda haddii aan leed rabitoonkooda adeega caafimaad haddii aan leed ku xirnaanshahooda xarumaha caafimaadka haddii aan leed ogaanshahooda xarumaha caafimaadka meesha ay ka jiraan deegaanada galmudug ayaa dardargelin dhanka caafimaadka ah laga sameynayay iyadoona wax weyn laga bedelay wasaaradda caafimaadka galmudug ayaana waxa ay ku dadaalaysay sidii loo qabtiri lahaa baahida dhanka caafimaadka ah deegaanada galmudug maxamed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusa maraab shir looga hadlayay ilaalinta xuquuqda dadka naafada ah oo ay ka qayb galeen ururada bulshada iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Deeqa Maxamed Axmed ayaa warkan faafahinaysa. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen madax kala duwan oo dowladda ka tirsan iyo marti sharaf kale ayaa waxaa looga hadlayay xuquuqda naafada Soomaaliyeed kaasi oo socon doona muddo 2 cisho ah iyadoo la filayo in laga soo saaro qodobo muhiim ah oo quseeya xuquuqda naafada. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada qaranka mudane Cabdinuur Maxamed Axmed oo furay shirka ayaa sheegay in natiijo wanaagsan uu ka soo bixi doono shirka ka qaybgalayaashana looga fadhiyo inay ka doodaan xuquuqda naafada. diinteena islaamka iyo dhaqankeena suubana intaba waxay dhigayaan ay ku caddahay xuquuqda qofka bini aadanka leeyahay oo karaamada ugu horeyso iyo xuquuqaha kale ee ah in aad waxbarasho heshaan inaad caafimaad heshaan in qofka kale ee isu haysta inuu dhammaystiran yahay xubnihiisu ay dhammaystiran yihiin xuquuqda uu ka filan karo waalidka iyo guriga iyo bulshadaba mid lamid ah ee dadka naafada ah runtii mudan yihiin naafanimadana ma aha runtii xubin qofka ka maqane waa sidoo caqligiisa iyo garashadiisa uga faa'iideysto bulshadana uga faa'iideeyo waxaan garowsanahay dad badan oo idin kamid ah inay maanta ka nacfi badan yihiin kuwa darbiyada fadhiya fadhi ku dirrada fadhiya dadka dhibaateynaya gudoomiyaha hay'adda awoodsiinta naafada Soomaaliyeed Maxamed Cali Faarax ayaa sharaxaya xuquuqda ay leeyihiin naafada Soomaaliyeed. barnaamijkeena maanta waxa waaye fahamka xuquuqda naafada ee qaramada midoobay caalamka kaasoo af English ahaan loo yaqaano UNCRPD. sharcigan waa sharciga heshiiska caalamiga ah ee naafada waxaana Soomaaliya saxeexday sanadkii 2018 bishii Oktoobar 2 ayaa wasaaradda xuquuqda aadanaha wasiir Deeqa Yaasiin Xaaji Aadan ay soo saxeexday programka ama barnaamijkan ujeedadiisu waxay tahay in dadka la fahansiiyo oo maadaama English oo ah in af Soomaali ka dhigno buugaag ayaan qaybinay oo af Soomaali ku qoran sidoo kale waa loo sharxi doonaa oo presentation ayaa la siin doonaa dadka oo la fahansiin doona qaabka qodobada konton qodob uu ka kooban yahay kontonkaas qodob ayadoo buugaana waa siinay ayadoo akhris ah oo qoraal barnaamijyada oo aan u akhrin doonana way hadda ay dhacaysaa presentation-ka. gudoomiyaha naafada qaranka Cali Cabdullaahi Salaad iyo gudoomiyaha naafada gobolka Banaadir Axmed Xasan ayaa waxa ay sheegeen in dawladdu ay ku dadaashay xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba. mar walbana quraankeena tilmaamaha
dhanka aadanahana waa lagu xaqiijiyey in uu dadku u sameeyay xuquuqdaas si gaarana midkaan ayaa noo quseeya waa uga mahadcelinaynaa dadaalkii dheeraay oo ay gelisay wasiir deeqo iyo guud ahaanba dowladda oo hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wixii ay ka qabatay arrimaha naafada waxaa ogtihiin waddanka Soomaaliya xornimada wuxuu qaatay 60kii dowlad ku guuleysatay nidaamkan waxa ka jira dowladan oo hogaaminaya maxamed cabdulaahi farmaajo marka insha Allah taala dowladayna waxay naqaday dowladda noolaysta naafada Soomaaliyeed ee naqatay dowladayna oo hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa khayr waxa ka go'an kulligood inay naafada Soomaaliya oo dhanba inay nooleeyaanbo oo jidka fiican geeyaan deeqa maxamed axmed warbaahinta qaranka muqdisho mas-uuliyiin ka kala tirsan galmudug iyo puntland ayaa ka qayb galay kulan lagu xoojinayo heshiisa waa dadaalada dib u heshiisiineed oo beelo walaalo ah la dhex dhigay kuwaas oo dirire dhawaan ay ku dhex martay qaybo ka mid ah gobolka mudug wariyahayaga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan gaalkacyo ka soo diray kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta dalka isla markaana ahaa mid lagu taageerayay heshiiskii laga gaaray colaad beeleedyadii ka ognaan jiray deegaanada Afbarwaaqo iyo Tawfiiqa ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kulanka oo ay ka qayb galeen waxgarad mas'uuliyiin dhalinyaro iyo haween ka soo kala jeeday maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Rooble Axmed Daahir oo ka socday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta dalka wada saxiixeen beelaha walaalaha ee dirirtu dhex martay ciidanka xoogga dalku ay xabadda ku joojiyeen oo u kala saxiixeen 18kii bishan hadda aynu ku jirno ee Afbarwaaqo ka dhacay labo waxaa la doortay guddi ka kooban 14 xubnood shir guddoon buu doortay waxaa loo sameeyay qaab dhismeed waxayna codsadeen in dawladda federaalku ay ka taakulayso in la tayeeyo guddiyadaas si ay wada xaajoodyada u galaan qodobka saddexaad in wada hadallada beeluhu ay sii socdaan afar in wada hadal lagu dhameeyo dhibaatada meesha ka jirta xal waarana laga gaaro wixii dhib ah oo daran oo aan laga samri karin lagu lafaguro shirarka soo socda in guddiga isku dhafka ah odayaasha labada beelood ay gacan siiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u fuliyaan heshiisyadii nabadeed 6 in odaygii kamid ah odayaasha 14 ah guddiga ah ee heshiisyada nabadeed u hoggaansami waaya ay ciidanku tilaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan in gogoshan xigta la dhigo magaalada Gaalkacyo 5 bisha labaad ee soo socota maxamed axmed cumar jeegaxiir iyo abshir cumar oo ku hadlayay magaca waxgaradka beelaha colaadu horay uga dhex martay ayaa kulanka ka hadlay iyagoona sheegay inay aqbaleen labada beelood qodobada lagu heshiiyay dhinaciina fuliya dhinacayaga fulinaynay wixii ka tahay dimana aan isku nimo ayagana intaasaan leeyahay aan tihiin bari iyo hadda qoraxsana tihiin nala qaateen oo nala dhaweey oo nala soo qaat adiga intaasaan nahay gogleedii iyo waqtigeedina halayni ka helo anagu sidii lagu heshiiyay raggii iga horeeyay odayaasha ahaa ka hadlay waxa ka hadlay agaasimaha anagu heshiiskaas waxaanu diyaar u nahay oo taabagelinaynaa oo aanu rabnaa inaanu ku dhaqanno oo aanu jecelahay inaanu isku wacyigelinno inaanaan heshiiskaas anagu aanan ka leexan sidoo kale kulanka ayaa intuu socday waxaa ka hadlay xubno ka tirsan guddiga nabadgelyada gobolka Mudug iyo xubno ka socday ururada haweenka iyo dhalinyarada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug kuwa oo si isku mid ah u soo dhaweeyay heshiiska laga gaaray colaad beeleedii ka jira deegaanada Tawfiiq iyo Afbarwaaqo sidoo kale la ballan qaaday inay kaalintooda ka qaadan doonaan si xoojinta amniga iyo nabadgelyada gobolka ugu dambeynna waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiri Isxaal oo kulanka lagu casuumay dhaqameedyada 62 ah inay barnaamijkaas todobada nala qaataan oo ay gobolka Mudug oo dhan lagu xukumo waa codsi waayo meelo badan baa dagaal ka jira ilaahayna waxaan u mahadcelinayaa soo qaban qaabtay
kow waxaan u mahadcelinayaa allihina abuurtay labo labada beelood oo qaatay go-aanka degdega ah waan u mahadcelinayaa guusha ay gaareen waana mid noqon doonta gobolka mudug oo dhan inuu guushaas wada qaato ee meel dambe uusan dagaal ka dhicin ilaahay baan ka baryaynaa. cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaal saad uga daawanaysan telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe aynu ku leenahay magaalada Muqdisho aniga iyo dhammaan asxaabtii kala qayb qaadatay guud ahaanteen waxaan idinkaga tageynaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fi amaanillah.